iyadoo magaalooyinka Soomaaliya degan ay ka jireen abaar aad u daran ayaa magaalada Buuhoodle waxa ka taagan abaar aad u daran magaalada Buuhoodle ayaa wuxuu halka jirgan ay biyaha maraya $1 ururka qaryadaada quruxsan ayaa wuxuu biyo gaarsiiyay kaamka Tuulo Barwaaqo ay degan yihiin dadka ka yimid koonfurta Soomaaliya dadkan ayaa waxay noo sheegeen inay haysan wax ay biyo ku shubtiin iyagoona halka jirgan laga soo siiyay $1 dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan qurbo joogta u dhalatay magaalada Buuhoodle iyo ganacsatada ku nool magaalada Buuhoodle ayaa waxay ka codsadeen inay soo caawiyeen ugu horeyn halka waxa ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada qaryadaada quruxsan Buuhoodle qaasatan kaamka Tuulo Barwaaqo in kaamka waxa degan dad aad u dayacan oo biyo la'aan u dayacan dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaasatan qurbo joogta magaalada Buuhoodle waxaan leeyahay wad aragtay magaalada Buuhoodle xaalkeeda magaalada Buuhoodle waxay maraysaa halka jirgan in la siiyo $1 abaar kasta oo soo martay wali lama arag hal jirgan $1 la siiyo marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaasatan qurbo joogta Soomaaliyeed war dadkan aragtiin u soo arxamo dadkan idinka u baahan jecel ka qayb qaadato dadkan dhibaataysanayna wax siiso ama quudaha ama biyaha waxaan faraynaa inay ka soo qayb ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu naga jabiyo abaarta baahsan sidoo kale qof kasta oo wax awooda inuu wuxuu awoodo soo diro kaliya inaan dhihin cid ay maqan wuxuu soo dir maaha qof kasta wuxuu karaankiisa uu awoodo inuu dadka ku soo sadaqadaysto sababtoo ah dadka maanta waxa haysta hore u soo maray maaha waa xaalad adag baa lagu jiraa dhan walba Soomaaliya ahaatee waxaan rajayn doonaa qof walba oo damiirle inuu soo damqan doono dadka inaan fayskii labaad ee biyo qayminta ka qaybino kaam Barwaaqo oo kamid ah magaalada Buuhoodle kaamamkooda kaamkan oo aan hore biyo uga qaybinay oo xaalad abaareed ka jirto inkastoo deegaanka oo dhan abaartu ka jirto oo deegaanka biyo la'aan ka jirto laakiin ururka qaryadaada qurxiso waxaanu maalinkii labaad ama fayskii labaad ka wadnaa biyo dhaaminta magaalada Buuhoodle gaar ahaan kaamka Barwaaqo waxaan farayaa dadka muxsiniinta ah ee jooga daljoog ama ha noqdaan ama dibadjoog ha noqdaan inay ka soo qayb qaataan abaarta baahsan ee ka dhacday wadanka sida ogsoontiin dalka abaar baa ku dhufatay wad ogtiin oo Ilaahay baa quraankiisa inoogu sheegay waxa uu yiri isu naxariistaan in naxariistee marka dadkan baahiyeysan ee kaamka degan anagu waan ka warhaynaa ka urur ahaan ururka qaryadaada qurxiso waxaan nahay dad macnaha baahidooda og dadka macnaha ka warhayaan nahay hadaan ururka nahay oo de macnaha mar walba la soo xiriidha markii koowaadna ma aanu biyo keenno kaamkan Barwaaqo ee magaalada Buuhoodle waxaan farnaa dadka muxsiniinta in ay ka soo qayb qaataan biyo dhaankan oo aan ahayn markii koowaad iyo markii labaad aan haddana ku istaagahayn oo noqonayo mid aan wadi doono annagu waxaan nahay urur dhalinyaro ururka qaryadaada qurxiso waxaan nahay urur isku xilqaamay dadka baahidu hayso waxaan nahay urur ka shaqeeya deegaanka horumarkiisa hadaan nahay ururka qaryadaada qurxiso marka waan wadaynaa biyo dhaankan marka dadka muxsiniinta iyo hay'adaha caalamiga ah waxaan ku codsanaynaa inay ka soo qayb qaataan magaalada Buuhoodle oo dadkii barakacay oo ka soo qaxay koonfurta bay boqol ka soo barakacay baan hay Buuhoodle baan degan Ilaahay mahadle ururka qaryadaada qurso markii labaad la soo gaarsiin biyaha aad bay u mahadsan yihiin boqolkiiba 9 waa mahadsan yihiin anagana ducay baan ugu dareynaa kulli reeraha waa u jeedaa waxay ku jiraan guriyadooda tabartoodana waa u jeedaan ishaada ku macalane waad soo duceynaa dadkii biyaha la soo baxay waxay dalka dibadda joogay muslimiinta dhan waxaan ugu baranaynaa Ilaahay inay barakeeyo dadka danta yar ee magaalada Buuhoodle degan ayaa waxa la soo dirtay biyo la'aan aad u daran Najaam Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga CBA magaalada Buuhoodle